afhayeenka ciidamada militariga Kenya Major Emmanuel Jirjir ayaa sheegay in Kenya ay qorsheynayso inay weeraro dhanka cirka ah ku qaado ku dhawaad 10 magaalo ku yaala gobolada koonfureed ee wadanka Soomaaliya. weerarada ayaa xudun u noqon doonta magaalada Biibbo oo uu sheegay Mr. Jirjir inay tageen ilaa 2 diyaaradood oo aan la aqoon halka ay ka yimaadeen kuwaas oo hub u siday xarakada Al-Shabaab. sidoo ku shaaciyay Major Emmanuel Jirjir akoonkiisa Twitter magaalooyinka howlgalladan lagu qaadi doono ayaa waxaa ka mid ah afmadow afgooye Biibbo iyo magaalada Dekedda ee Kismaayo. ciidamada difaaca Kenya waxay uga digayaan dadka ku nool magaalooyinkaas in ay wax xiriir iyo wada shaqeyn la yeeshaan kooxda Al-Shabaab oo ay dagaal kula jiraan isla markaana ay ka fogaadaan goobaha xarumaha u ah si aanay saameyn ugu yeelan duqeymaha ayuu yiri Major Emmanuel Jirjir. isagoo intaas sii raaciyay in howlgalka loogu magac daray Linda Enji oo micnaheedu yahay ilaali qaranka uu diiradda saarayo magaalada Kismaayo xarun dhaqaale oo Al-Shabaab. sidoo kale magaalooyinka la bartilmaameedsanayo ayaa waxaa ka mid ah Bu'aale, Jilib, Marka iyo Baraawe. jariirada The Standard oo ka soo baxda magaalada Nairobi ayaa sheegtay in 2 diyaarad oo hubsida ay ka degeen magaalada Biibbo oo ay kontrolaan xarakada Al-Shabaab. jariirada ayaa sheegtay in 2daas diyaarad ay soo dirtay dowladda Eritrea iyadoo soo xiganaysa dad ku sugan magaalada Biibbo. Major Emmanuel Jirjir oo afhayeenka ciidamada militariga Kenya ayaa xudun uga dhigay weeraradooda inay kaga hortagayaan hubka ay helayaan xarakada Al-Shabaab oo ay kula jiraan dagaal qaraar. weerarada dhanka cirka ee uu ku baaqay Major Emmanuel Jirjir ayaa imaanaya maalmo kadib markii duqeyn dhinaca cirka ah oo loo geystay magaalada Jilib lagu dilay 3 qof laguna dhaawacay 60 qof oo dhammaantood rayid ahaa. howlgalka ciidanka Kenya ee ugu magac dareen ilaali qaranka ayaa bilowday 16 bishii dhamaatay ee Oktoobar markaas oo xoog ku galeen ciidanka Kenya gudaha Soomaaliya iyagoo ka jawaabaya afduubyo isxigxigay oo ka dhacay gudaha wadanka Kenya. Ibrahim Gedow Biibbo Royal TV Nairobi.